toddobada bisha Jamaadul Aakhir sanadka 1447 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada barnaamijka saaka aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah waa ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee loo yaqaan IRGC oo shaaciyay in ay u diyaar garoobeen dagaal waliba ay kordhiyeen awoodooda 40% marka la barbar dhigo dagaalkii 12 maalmood socday ee ay la galeen Israa'iil hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo xiisadda gobolku cirka ay ku shareeran tahay isla markaasna laga cabsi qabo dagaal ballaaran oo qarxa wararkii ugu dambeeyay ee warkan ka soo yaray ciidamada Iiraan ayaa idin faahfaahin doonaa dagaalo ba'an oo gacmaha la isula tagay ayaa ka soconaya gobolada Kordofan ee dalka Suudaan halkaasi oo ay ku loolamayaan ciidamada militariga Suudaan iyo kuwa RSF wadahadallo xasaasi ah oo ku aadan mustaqbalka dagaalamayaasha Xamaas ee ku sugan godadka Rafah ee ay ku sugan yihiin ciidamada Israa'iil ayaa socda khilaafkii ka taagnaa Israa'iil oo cirka isku shareeray kadib markii wasiirka mayalka adag ee maaliyadda uu si adag u cabaareeyay abaanduulaha ciidamada isagoo la saftay wasiirka gaashaandhigga dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka amijada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa war culus oo ka soo yeeray taliska ciidamada kacaanka islaamiga ah ee waddanka Iiraan arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo gobolka laga cabsi qabo dagaal inuu ka qarxo isla markaasna hadallo adag ay hawada isu marinayaan oo hanjabaad ah mas'uuliyiinta iyo saraakiisha ciidamada Israa'iil iyo Iiraan waxay kaloo arrintan ku soo aadaysaa iyadoo Faransiiska iyo wadamada kale ee reer Yurub sida Ingiriiska iyo Jarmalku Iiraan cadaadis ay ku saarayaan in ay ogolaato in kormeerayaasha ka socda hay'adda IAEA ay galaan xarumaha nuclearka arrinkaasi oo Iiraan si weyn ay uga soo horjeedo xaaladdu waxay maraysaa meeshii ugu xumayd dagaalkan waxa la sheegayaa inuu qarxi karo xilli walba laakiin Iiraan waxay leedahay waxaan u diyaar garownay si ka heer sarreysa markii dagaalka uu qarxay 12kii bishii June oo markaasi dagaalku uu socday 12 maalmood haddaba aynu eegno warbaahinta Iiraan ay saacadihii ugu dambeeyay aad u hadal hayso oo la xiriira hadalkan ka soo yeeray ciidamada Iiraan ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iiraan ee loo yaqaano IRGC ayaa sheegay in diyaargarowgooda ciidan uu kordhay 40% marka la barbar dhigo dagaalkii 12 maalmood socday ee ay la galeen Israa'iil afayeenka ciidamada kacaanka islaamiga ah ee Iiraan Brigadier General Ali Mohammed Al-Naini oo ka hadlayay toddobaadka Baziij ayaa carabka ku adkeeyay in dagaalkii 13kii June uu ahaa mid naxdin keenay balse fariinta hogaamiyaha sare Ayatollah Ali Khamenei ay ahayd mid u rogtay naxdintii kalsooni qaran taasi oo la mid ahayd buu yiri farcelintii Imam Khomeini intii uu socday dagaalkii Ciraaq 1980 Naini waxa uu sheegay in cadowgu uu rumaysnaa in beegsiga raadaarada iyo hogaamiyaasha uu wiiqi karo jawaabta Iiraan balse hogaamiyaasha militariga Iiraan ay horay u diyaariyeen in shaqadu socoto xitaa haddii la beegsado sidaas darteed howlgalka ballanqaadka dhabta ah wejigiisa saddexaad wuxuu bilowday buu yiri 12 saac gudahood oo kaliya markii dagaalka uu qarxay General Ali Mohammed Al-Naini waxa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in dagaalku uu mideeyay aqoonsiga qaran iyo kan diimeed isla markaasna 80% shacabka Iiraan ay rumaysan yihiin awoodda cabsi gelinta dalka in ka badan 120 dal iyo urur caalami ah ayaa cambaareeyay weerarka lagu qaaday Iiraan bishii June waxaana Al-Naini taasi oo ku tilmaamay caddayn muujinaysa xaqnimada Iiraan isagoo ka hadlayay awoodda gantaalada
wuxuu sheegay in gantaalada Iiraan ay mareen hawada Ciraaq, Suuriya iyo Urdun halkaasi oo difaac hawada oo casri ah lagu diyaariyay. xeeldheerayaasha Iiraan ayaa beegsaday xarumaha sirdoonka, kuwa aqoonta iyo goobaha xasaasiga ee Israa'iil iyo sidoo kale warshadda sifaynta shidaalka ugu muhiimsan, iyagoo sheegay in Israa'iil ay lumisay qorshayaal aqooneed oo ay soo waday ama ay dhisaysay muddo 20 sano ah. Naciini waxa kale oo intaasi uu ku daray in Iiraan aysan la yaabin dagaalka heerka istiraatiijiga, balse weerarka koowaad uu ahaa lama filaan farsamo. Wuxuu sheegay in diyaargarowga Iiraan hadda uu kordhay 40%, iyadoo horumar laga gaaray gantaalada, nidaamka saybarka ee internetka iyo weliba sirdoonka macmalka ah. Toddobaadka Baasiij waa toddobaad loo aasteeyey ciidanka iskaashiga shacabka ee Baasiijka loo yaqaan, kuwaasi oo hoostaga ciidamada IRGC si loo xuso doorkooda taariikheed, dhaqan iyo militari ee gudaha dalka Iiraan. waa tahay wixii waraha ee arbahaasi ku soo kordha waynu arki doonaa. markan aynu eegno xagga qaaradda Afrika iyo dagaalka Suudaan, iyadoo dagaalo culus ay socdaan ayaa wararka ugu dambeeya ee naga soo gaaraya waddankaasi waxay sheegayaan in dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dowladda Suudaan iyo kuwa gurmadka degdega ah ee RSF inuu ka socdo magaalada Kartala ee gobolka Kordofaanta Koonfureed, sida ay sheegeen ilawareed military. ciidanku wuxuu ku guuleystay in uu joojiyo horumarka kooxaha weerarka soo qaaday, isla markaasna uu ka hortago duulaan ballaarana oo ay taageerayaan garabyo ka tirsan RSF xilli dagaaladu ay ku sii fidayaan koonfurta dalka, iyadoo docda kalena cadaadis caalami ah lagu saarayo dhinacyada inay aqbalaan xabad joojin bini'aadantinimo. saddexda gobol ee uu ka kooban yahay Kordofaan ee waqooyiga, galbeedka iyo koonfurta ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxay wajahayeen dagaalo aad u xooggan oo u dhaxeeya ciidanka militariga ee dowladda iyo kuwa RSF, taasi oo qayb ka ah dagaalkii bilowday bishii Abriil 2023, kaasi oo sababay geerida 10,000 oo qof, isla markaasna ay ku barakaceen qiyaastii 13 milyan oo qof. docda kale, arrimaha dhanka siyaasadda ayaa sii kululaanaya kadib wararka sheegaya in Maraykanku uu soo gudbiyey dukumenti cusub oo la xiriira nabadda Suudaan. madaxweynaha golaha sare ee militariga Suudaan, General Abdul Fattah al-Burhan, ayaa xalay kulan uu kula yeeshay ergeyga Norway ee Suudaan, Andreas Karaveke, magaalada Port Sudan. waxa uu sheegay in dowladdu aysan helin wax soo jeedin cusub ah oo dhanka Maraykanka ka yimid, isla markaasna waxa lagu faafiyey warbaahinta ay yihiin kuwa been abuur ah. ergeyga Norway ayaa isna geestiisa beeniyey wararka ku saabsan in ay jiraan 2 dukumenti oo Maraykanka ah, isagoo caddeeyey inuu la xiriiray mas'uuliyadda Washington, isla markaasna ay u sheegeen in soo jeedin kaliya ay tahay taasi oo la xiriirta xabad joojinta ay soo bandhigeen dalalka afarta ah ee Maraykanka, Sacuudiga, Masar iyo Imaaraadka. Khartoum waxay soo dhaweysay caddayntan, waxayna adkaysay in tala kasta oo cusub lagu soo bandhigo wadatashi toos ah, iyadoo ka digaysa qorshayaal laga yaabo in ay hareer maraan heshiiskii Jidda ama adkaynaya in RSF ay sii joogto meelaha ay gacanta ku hayso. dowladda Suudaan waxay sheegtay in ay diyaar u tahay wadahadal, balse ay ku adkaysanayso in RSF ay ka baxdo magaalooyinka iyo goobaha dadka rayidka ah inta aan xal la gaarin. وهجاب waxaan u gudbaynaa goordhow warar la xiriira marayka Gaza iyo weliba dhanka Israa'iil oo khilaaf culus oo ka taagan yahay. intaan u gudbin wararkaas aynu ku hakanno qadar xayeysiina. qari online waxa uu diyaar idin leeyahay barashada maadooyinka quraanka kariimka, higaada iyo asaasiyaadka diinta islaamka, iyadoo ardaygu uu helayo hal wiig oo tijaabo ah inta uusan arday si rasmi ah uga noqon xarunta, taasoo ah waxyaabaha ay gaarka la yihiin. macallimiintu waa khuburo, macallinka ugu yarna waxa uu leeyahay 5 sano oo khibrada. waalidka ubadku u dhigtaan isagana free wuu ku baran karaa haddii uu u baahan yahay, iyaduna waa fursad kale oo waalidku uu ka helayo qari online. haddaba si aad uga faa'iidaysato casharrada qari online, la xiriir ciwaanada iyo telefoonnada shaashadda kaaga muuqda. ku soo dhowow xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic. Private Walk in Clinic
waa xarun caafimaad oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir khubaro ah oo isugu jira Soomaali iyo ajnabi oo rag iyo dumar bale. xaruntu waxay dib u habayn iyo casriyeyn ku samaysay dhammaan adeegyada caafimaad ee ay bixiso. xaruntu waxay furan tahay 7 maalmood ee isbuuca. ballantana si fudud ayaad u qabsan kartaa adigoo isticmaalaya telefoon, fariin qoraal ah ama online. waana heli kartaa ballan dhakhtar isla maalintaas. xarunta Private Walk-in Clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada London, xaafadda caanka ee Shafar Bush. wixii faahfaahina kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda. soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK. si aad u hesho faahfaahin dheeraada una adeegsato adeegga Safari Remit, booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com. soo dhawaada mar kale dacwadaya. jimca mubaarag ayaan idin leenahay meel walba aad joogtaan. waxaad weli la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo toos idinkaga imaanaya istuudiyahayaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad kala socon kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. warbixino qoraal, warar, faaclooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waa hagaag. markan waxaynu eegaynaa wararkayagii toddobaadyaddan waxaa ku jirtay warbixinta ku saabsan dagaalamayaal ka tirsan ururka Xamaas oo ku jira god dhulka hoostiisa ah oo ku yaal Rafax, gaar ahaan aagga jaalaha ee ciidanka Israa'iil ku sugan yihiin. arrintan dood adag ayay dhalisay, waxaana ay halis gelisay xitaa heshiiskii rasaas joojinta. Israa'iil ayaa waxay diidan tahay dagaalamayaashaasi in goobtaas ay ka baxaan. Xamaas waxay doonaysaa dagaalamayaasha in loo ogolaado inay ku soo laabtaan dhanka ay gacanta ku hayaan Mareykanka Gaza. dhexdhexaadiyaasha ayaa dadaal weyn sameeyey, laakiin arrintaas waa lagu guuldareystay. xitaa waxay keentay soo jeedin ka timid wadamada dhexdhexaadiyaasha oo ahayd in dagaalamayaasha hubka iska dhigaan laakiin ay baxaan. xitaa waxaa la soo jeediyey in dibadda ay u dhoofaan, laakiin waxaa la diiday ama diidayba wadamadii la soo jeediyey inay qaabilaan. yaa qaabilaya? nimankan waa niman ka tirsan guutada la yiraahdo Rafax. waa 100 ilaa 150 ilaa 200 tiro rasmi lama hayo, laakiin Israa'iil waxay ku andacootaa marna 100 bay tiraahdaa, marna waa 200. laakiin waxaa la sheegay inay yihiin ciidan ka mid ah ciidamada ugu tababarka sarreeya guutooyinka Al-Qassam. labadii maalmood la soo dhaafay Israa'iil waxay ku andacoonaysay in 3 ay soo dhiibtay, 4na ay dileen. laakiin waxa leeyahay dadkaasi waa dad rayida. nimankan xalay waxay ku celiyeen mar kale bayaan ay leeyihiin horta waxa la yiraahdo isdhiibid maba ku qornaba buuggeenaba. haddii si kasta loo baaro oo toosh la qaato oo weynaysa la qaato oo dobir la qaato oo lagu eego telescope, waxaas maba ku jirtaba buuggeen ay leeyihiin. hadda marka waxaa leeyahay arrintii waxay ku dhowdahay xal in laga gaaro. natiijaha waxaa islahaabay qubaradu leedahay nimankan hubkiina waa ka gabaabsi, biyo ma haystaan, raashin ma haystaan, ayagoo gacmaha taagaya soo baxayaan. nimankan waxay taagan yihiin inaan meeshaas ku dhimanno iyo inaan ka baxno annagoo nolol xukumi wax u dhexeeya ma jiraan. arrinta marka hadda meel adag way maraysaa. haddaba aynu eegno wararka ugu dambeeya amuurtan. wadahadallo ayaa socda ayaa la leeyahay, la doonaya in lagu xalliyo caqabadaha la xiriira dagaalamayaasha Xamaas ee ku jira godad Rafax ku yaal. ilo xogogaal ah ayaa warbaahinta waxay u xaqiijiyeen in doodaha imika ay u dhaxeeyaan Xamaas, dhexdhexaadiyaasha iyo Mareykanka, iyadoo arrintuna ay ku dhowdahay in xal la helo. hogaamiye ka tirsan ururka Xamaas oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP ayaa sheegay in wadahadal iyo xiriir ay la leeyihiin Qatar, Mareykanka, Masar iyo Mareykanka, kuwaasi oo sheegay in ay ku wajahan yihiin sidii xaaladan lagu dhamaystiri lahaa. hogaamiyahan ayaa ka gaabsaday magaciisa in la xuso. ila Falastiiniin ayaa dhinaca kale waxay xaqiijiyeen in arrintan laga hadlayay asbuucan oo idil, waxaana lagu soo warramayaa in wadamada dhexdhexaadiyaasha ee afarta ay doonayaan in dagaalamayaasha loo raro dhanka ka baxsan qadka jaalaha ee koonfurta Mareykanka Gaza. Xamaas ayaa ku eedeysay Israa'iil in ay beegsanayso, ayna doonayso inay disho dagaalamayaasha ku xayiran godadka Rafax, taas oo ay ku tilmaamtay jabinta xabadjoojinta. waxay sheegtay inay dadaal badan gelisay xalinta arrintan
balse Israa'iil ay fashilisay. Xamaas waxay Israa'iil dusha u saartay mas'uuliyadda buuxda ee badbaadada dagaalamayaasha, waxayna ugu baaqday dhexdhexaadiyaasha in ay cadaadis saaraan Israa'iil. Israa'iil waxay ku qiyaasaysaa ku dhawaad 200 oo dagaalamayaal ah inay ku xayiran yihiin gudadka, waxaana ay sheegtay inay u dhow yihiin in markaasi ay kala doortaan laba arrin, isdhiibid ama dhimasho. laakiin maxaynu sheegnay oo warbaahinta ay sheegaysaa inay nimankan yiraahdeen waxa la yiraahdo isdhiibid ma jirto. waa tahay wixii ku soo kordhay wadahadalladaas waynu arki doonaa. xagga Israa'iil khilaafkii taagnaa ee wasiirka gaashaandhigga iyo abaandulaha ciidanka ayaa sii ballaartay. iminka jiha cusub ayuu yeeshay. waxaa ku soo biiray wasiirka mayalka adag ee maaliyadda Israa'iil Bezalel Smotrich. aynu eegno wararkii ugu dambeeyay arrintan ee warbaahinta Israa'iil ay wax ka qortay. wasiirka maaliyadda Israa'iil Bezalel Smotrich ayaa weerar afkaha ku qaaday abaandulaha ciidanka Israa'iil Eyal Zamir, isagoo ku eedeeyay in uu ka baxay xadkii awoodihiisa kadib markii uu si dadban u dhaliilay wasiirka gaashaandhigga Israel Katz. weerarka Smotrich ayaa imaanaya iyadoo khilaaf xooggan uu ka dhex aloosan yahay Zamir iyo Katz xilli la wado in la sameeyo baaritaan fashilkii Israa'iil ku dhacay 7 Oktoobar 2023. Smotrich oo ah hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee diinta ee Sahiyuuniyadda ayaa sheegay in aan la aqbali karin in taliyaha guud uu warbaahinta ka dhiibto hadallo uu ku dhaliilayo wasiirka uu hoos joogo ama uu ka hoos shaqeeyo. khilaafkan ayaa ka sii daray kadib markii Katz isniintii uu hakiyey magacaabis saraakiil oo uu magacaabay Zamir, kuwaasi oo lagu soo warramay in lagu bedelay kuwa shaqada uu ka eriyay abaandulaha. waxaana la sheegayaa in Zamir oo ah abaandulaha ciidanka uusan la tashan wasiirka gaashaandhigga. go'aamadaas ayaa lagu tilmaamay wasiir dalka loo dhigay kuwa dhaawacaya ammaanka Israa'iil. dhacdadii 7 Oktoobar ayaa loo arkaa mid ka mid ah guuldarrooyinkii ugu waaweynaa ee sirdoon iyo militari ee Israa'iil, taasi oo dhaawac weyn u geysatay sumcadda Tel Aviv. tan iyo markii Zamir loo magacaabay xilka bishii March 2025, khilaafyo kala duwan ayaa soo noqnoqday, gaar ahaan baaritaanada weerarkii Oktoobar dhacay iyo magacaabis militari oo uu sameeyey bishii Agoost oo markaasi uusan kala tashan Katz. warbaahinta gudaha ayaa sheegaysa in Zamir horey uu u diiday qorshaha Katz iyo in markaasi ninka lagu magacaabo Guy Marchesno loo magacaabo wakiilka militari ee Washington. arrinta marka khilaafka meel adag bay maraysaa. dad badan waxay leeyihiin arrintan waa arrin lagu qarinayo laba mid: guuldarrada Israa'iil ka haysata dagaalada ay gashay iyo in qorshayaal ay jiraan. ma Iiraan baa la weerari doonaa? daanta galbeed iyo Gaza ayaa la xoojin doonaa dagaalka? mise Libnaan baa la weerari doonaa iyo Xisbullah? marka dad badan waxay leeyihiin khilaafkan hadduu doono ma jiro, laakiin marka la fiirsho sida warbaahinta ay uga hadlaysa, gaar ahaan warbaahinta Israa'iil, waxaa leeyahay arrintan waa arrin aad u muuqata khilaafka inuu jiro. marka ishayna ku hayn doonaa wixii ka soo kordha arrimahaasna waynu arki doonaa. inta ayaan kusoo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka. waana ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. aynoo barnaamijka xiga insha Allah. inta ka horeysa